shacabweynaha Somaliland ayaa si isku mid ah u taageeray isla markaana soo dhaweeyay go'aankii madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uu ku cafiyay 14 askari ee u dhashay Puntland kuwaas oo Somaliland ay maxbuus ahaan u haysatay isla markaana lagu soo qabqabtay dagaaladii Tukaraq oo Somaliland ay bilaa shuruud ku sii deysay dadweynaha ayaa go'aankaasi ku tilmaamay mid ka turjumaya sida ay Somaliland u danaynayso nabadgelyada iyo wada noolaanshaha bulshada. magacaygu waa Maxamed Cumar Jaamac haddii aan ka hadlo raayigayga maxaabiista runtii madaxweynuhu wuxuu qaatay go'aan geesinimo leh waxaana ay dhaxal siinaysaa in ay labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland ay isku soo jiido khilaafyada iyo wixii dhib ka dhaxeeyana ay isku tanaasulaan waxaana shacabweynaha iyo ku taageeraan ugu baaqaya inay ku taageeraan labada dhinacba haday tahay labada dawladood waxay qaateen go'aan geesinimo leh. halka haddaan ka yar hadlo oo taabto dawladuhu marka ay dagaalamaan maxaabiista way kala qabsadaan hadday kala qabsadaan haddana way ka heshiiyaan oo maxaabiista weligeedba waa la isdhaafsan jiray waxaan u arkaa sumcadninkii Ilaahay tusaya si wanaagsan oo dawladii u diyaar garowdo weeyaan labada bulshada walaalaha waxaan u dirayaa kalsooni buuxda iyo walaaltinimo iyo nabad dhulka inay ku wada noolaadaan. waxweeye Cabdiqaadir Ibrahim Aadan haddii aan ka hadlo arintan Somaliland iyo Puntland iyo maxaabiista Somaliland oo madaxweynaha Somaliland sii daayay kulay run ahaantii aniga aragtideeda waxay la tahay mid soo dhawaanshaha ummadda Soomaaliyeed qabta specific markaynu eegnayna Somaliland iyo Puntland soo dhawaynaysan run ahaantii raygayga aad baan soo dhawaynaya madaxweynaha ku amaanaya si aad u qurux badan oo soo dhawaynaysan ninkii wax garanay in la gartaa dawladda bilaadmiyada waxaan gartaa nabadda wanaagsan baa doonay dadku inay gartaan nabadgelyada inay bartaan wanaagga gartaan ummadan jaar baynu dad walaalaynu nahay dadaan meel kala tagay baynu nahay dadkaasi waxa la doonayaa in iyaguna taasoo kala gartaan haddii la garan waayo waa ayaan daro nin kula nabad baan ka doonayaa wax leexan ka haystaa ma jiro ma aha inuu yiraahdo waxaan mareemayno habeenooda waxaan maqlaay marka waxaan us kelmadda u leeyahay madaxweyne ku xigeenka Doraa maanta shalay hadlay annagu nabad ma qaadin buur dal baan laga haystaa buur dalkaana de annagu ma qirsanino Somaliland ma leeyahay halkaynu joogno Somaliland mana dhaafayno dagaal ma qaadayno aanu san qabo oo Somaliland dagaal ma doonayso wanaag bay ummadda kula ceeshaysaa jaararka oo dhan kula ceeshaa Puntland baa ugu dhow kula ceeshaa Soomaalina waa isku mid oo walaalo laakiin siyaasaddu waa kala gooni oo waa la kala baxay oo halkaas la wada digaya waxaanu leenahay wardad walaala oo jaarar aan ahaano nabadaan wada ilaalino waa noodan ummadda u dan tahay nimcooyinkan alxamdulillah hadii istilaan bilaadku markaas aad isku dilaan waxa weeye markaas waa in la heshiiyo marka laba dal baan nahay darisna waan nahay marka waxa weeye hadii maxaabiista la qabtay muxuu la sii daayay taasi waxay horseedaysaa nabadda wax wanaagsan way ahayd kaas go'aan wuxuu ahaa geesinimo go'aan doonaya maxaa inuu u horsado wanaaga anu hadaan Somaliland markasta waxaanu jecel lahay daris wanaaga waxaanu jecel lahay nabadda marka waxaan doonay Puntland saan ugu aan sameeyno kale in ay iyaguna sameeyaan aanu arkaa walaalnimo in lagu wada noolaadaan ogolay aniga shakhsiyan ya dadnimo in lagu wada noolaadnimo dadku waa walaalo waa isku diin waa isku dad waa in walaalnimo lagu wada noolaado oo aan maxaabiista aan arkay la iswadaarsaday waa walaalnimo waa dadka in colaadda iyo dhibaatada laga daayo walaalnimo lagu wada aad baan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha sidaa fiican uu yeelay laakiin annagu mar walba waxaanu diyaar u nahay nabadgeliyo iyo haddaan Somaliland nahay inaanu waddankayaga aanan darisyadeeda inaanu nabadgeliyo kula noolaano laakiin haddii la deyn waayo Somaliland 19 wax qaadatay gooni sutaag haddii xadkayaga la soo galo eedade intaanu sii deynna ma kontonkeed baanu qabandhe hadday ayar joog weydaan haddii kalena daris wanaag aan kala helo annagu madaxweynaha waanu hambalyeynaa waanu ku faraxsanahay haddaanu nahay dadka Somaliland aad iyo aad baanu ugu faraxsanahay saas waxay aniga la tahay inuu si fiican yeelay oo macnaha dadku haday dhibaato dhex marto oo dawlad saaraynu nahay marka in la maxaabiis la weydaarsado qolobo waxay haystay weligeedba wax jirtay go'aan geesinimo baan go'aanka ka qaatay madaxweynuhu waanu ku mahadsanyahay waxaan u dirayaa inay yihiin dad islaama oo walaala inay mar walba nabadgelyada iyo walaala ku noolaadaan dhulkana waa la wada degan yahay waa la wada leeyahay dhulkuna meesha kama guurayo
waxa weeyaan qofka ayaamu ku nool yahay ayaamaha si sharaf leh ugu noolaado jaarkiisa iyo waalidnimadiina ilaaliyo caynkaasaan furaya labada dhinacba inaan waddanka nabadgelyada lagu deganaado laguna noolaado anugu waxaan u arkaa madaxweynuhu arrintii uu sameeyey ee uu ku dhoofiyey dadka si sharaf leh ayuu dhoofiyey wuu hagaajiyey alaab buu iibiyey qalab baa loo iibiyey madaxweyne ku-xigeenkiibaa sii sabootiyey sharaftii maxaabiis bay ahaayeen puntland majeerteeniyaa laga soo qabtay ninkii wanaagga garanaya qofkii wanaagga u qalmaa ayaa wanaag wuxuyeyna garanaya laakiin madaxweynaha puntland soo kii nabad ma doonayaanu ee dagaalba ka doortay yidhi marka nimaan warankaa u gelin weedhaadu adeer ma gasho maxamed muuse gudaal baa layidhaah sidaa waannu ka rajaynaynaa ilaahayna waan ku mahadinaynaa iyo madaxweynaha ka sii daayey waa wanaagsan ilaahay ay noo siiyaadiyo dowladnimadeenna nabadgelyadeenna maxaabiistuu sii daayey waan ku farxaynaa waan ku taageeraynaa madaxweynaha ku taageeraynaa muuse biixi cabdi nabadgelyadu colaadii bedelaysaa caloolxumaday bedelaysaa wadajirka kala jiidkay bedelaysaa wadajir bay nabadgelyadu horseedaysaa khaalid bulshaawi kalson TV hargeysa